waxaan shacbiga dhammaantii milyan iyo labada boqolba weydiisanaya inay codkooda ay siiyaan dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhaweynaya maxamed cabdillaahi cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda xaaji aadan dhammaan mas-uuliyiintii halkan maanta ka caddeeyey inay ku soo biireen xisbigan wadani ee magacyadooda la xaadireeyey iyo kontoriyada kale ee aan magacyadooda la xaadirin dhammaantiin soo dhawaada waa goor dambe waan soo koobi doona hadalka maxamed cabdillaahi cumar taariikhdiisa waynu wada garanaynaa wax badan kaga noqon maayo waa aqoon-yahan aqoon sare bartay oo xagga waxbarashada ku takhasusay markii dambena diblomaasiyadda ku takhasusay meelahan iska soo galnay ka mid tahay maxamed xagga diblomaasiyaddu kulmiye wuxuu yidhi ictiraafkii baan keenaya laakiin waxaan isleeyahay meeshu gaalaba ictiraafka ma oga kulmiye ictiraafkii waxa og maxamed cumar meeshu yaallo marka waxaan oo laa kulmiye dee haddaa keenaysan waan soo dhaweynaynaa ictiraafka haddaydaan garanayna maxamed weydiiya somalilan shacbigeeda waxaa lagu qiyaasay inta maanta codaynaysa ee xaqa ole inay codayso milyan iyo laba boqol anoo kala reebin shacbiga somalilan waxaan u sheegayaa inaan ahay musharax madaxweyne oo hogaaminaya isbeddelka shacbigu doonayo waxaan shacbiga dhammaantii milyan iyo labada boqolba weydiisanaya inay codkooda ay siiyaan si isbeddelka aad doonaysaan u guulaysto si midnimada ummaddu u soo noqoto si ciidankeenna qaranka aynu dib ugu dhisno kafaalo qaadanana noloshooda haddii alla ka dhigo si aynu adeega bulshada ee aan jirin maanta wax uga noqono si aynu kaabayaasha dhaqaalaha wax uga noqono si aynu ictiraafka oo aan ogahay inuu meel dhow yaallo aynu u keenno haddii alla ka dhigo gobolka gabiiley gobolka cagaaran berigaa siyaasadda bilaabay waa meeshii ugu horreysaan ka bilaabo maalintaana waxay waday allah u naxariistay axmed muuse geedi sanjar oo ahaa xogeyaha guudooda gabiile ilaa berigaa waa markay soo baxday 6 gobol iyo gebile oo axmed muuse geedi sanjar uu hogaaminayay gebile xaq bay u leedahay inay gobolka hesho waxaynu ka waraynaa dowladihii kala dambeeyey ee somalilan xukuumaddii madaxweyne daahir iyo xukuumaddii mujaahid madaxweyne axmed maxamed siilaanyo iyo xukuumadii kale ka dambeeyey waxay sameeyeen gobollo gebile ugu horreysay sharcigu wuxuu leeyahay mudduu siinaya xukuumadda inay ku soo gudbiso maadaama ay magacowday gobolka guddi inay u saarto oo soo qiimayso oo xuduudihii gobolka ama degmada kay doontayba ha noqotee la sameeyo anigu intaanan golaha ka tegin waan xukuumaddii markaas siinaayo u qoray
ورغم أن لا يقولنا مقعودين وجدي كالحدين لهاي نسوا مقعابا شرعي لو كالحدين هي نسوا صار إلا ما أنت وقت الله ولا قال مش بقى معك ورئيسا بقى شرعي الراعي إن شروط اللي دي اللي قولين لهانا الله كانوا لكن قالوا واجبات كيس شرعي في الدنيا نحاول شو عندي الله ينعم قبل كان لنا حرب اللي قبل لماذا ده لما أنتوا وعن ألقى الشعب السوداني هذا بشيء ما أنت فرصة ضايعة واحد من الصوماليين قدام أما إسلام كابا قبل قف مسلم كا الله شيء لقى موضة قديم محمد عبد الله عمر صاحبها مرة موسيقي لكن ده موسيقي اللي سمعها ما أنت ما كان يقول اسمعيه ده حقول لي ما كان حقول لي مواطن هذا استماع هذا دون سهرمر هذا دون سنبط هذا دون شو اعتراف ما أنت كلمية وحقوقه حزبي رجب علي قف مركو رجب علينا على كسرنا هي حرام هي عيطة هي فلقات هي هضاء وهلا عيطك هي أوارك هي فمضة هي اللي جوابي وهلا مع الدورة شديدة كل بيوم حلا يقرأ ما أنت الشعب يقول شيء وقفني الشعب يقول يحاول لي إني ويدي والحق وتيرته والعيتك يوم كاديو هذا غلط وقال عنا صوم بحيوه ويوم يوم ثم وحقيقتي مرة بعد مسؤول ويني مدحضة لو صار بيرتين مانتا وحنا بتيني إني شدال بدر كل شيء دونا قارن يستدل كذا عليها وحقيقتي حسبي وطني وحسب القرار والله كان الله والله الله مرة قال كنت أنا بتجري يا بعض سوسة اسمها لكن هذه شيء ما أنت حسب الأسياء ولوسو كالأوري لما كان الله يحول وكان حسب ما أنت ما أنت كرسين وتو كوربي هو وفي محمد القرآن بيستحبنا على شو ماشي حرف الأفريقيا وبدوبيا قوة الأفريقيا وبدوبيا حسين عيدين بارك شوية وبدوبيا وعبية شوية وبدوبيا حنان شوية وحلقة غير أيام إلى حسبي والله لك على عين اللي وصلوا كالوريين واللي هو ربنا في عين سبيلك هذا أنت اللي شو تشوفي أنت تصب على الراس والكعبة أنا بقول حسب وقع عارف أطلع كل يوم أنت نحن ما نوكل هذا حسنا بالود فريسة وما أنت كيك عرض منه لكن فوق هي أيوة نحن فريسة يا هذا الله